dalkii la oran jiray Soomaaliya aynu adigii anigu shaqayn jiray waa lagu kala tegay dhibaato ka taagan watan diiwaanadani balaayo wax soo degeen imika waxa laga shaqeynayaa sidii loo wada hadashiin lahaa Somaliland iyo Soomaaliya waan ogey waa run maxamuud xaaladii halkaas ay marayso laba arrimood baan doonayay inaad tusaale ka bixiso ninkastoo aanad siyaasi ahayn tala wada noqotay waa dhab Somaliland maxaad oran lahayd way ka dhimayeen yeela oo sameeya Soomaaliyadii kale amalka nagu lahayd isku qolada hayda iyo aydu lahayna maxaad oran lahayd kaga baxa dhibtan in raysatay sanadkii la sano yeela maxamuud waa runta wadanka Soomaaliya oo wadankeennii dadka deganaa waa dadkeennii dhibaatadana maamul baa loo tiriyaa inkastoo dadka markay qaar hadlayaan ay isku daraan shacbiga koonfureed iyo dhibaatooyinka dhacay runtii shacbiga koonfureed wax dhib ay ku leeyihiin ma jirto meelo badanna waad ka soo shaqaysay waad garanaysaa waad ku dhaqmayd laakiin mar walba waa maamul wixii dhibaato keena ama xaggeena ha noqoto ama xaggaa noqoto dhibaatada ugu weyne ugu dambeysayna dee maamul unbaa keenay inaba dad badan kamid ayaa ku jira oo kamid ah oo maamulka dhibaatada geystay marka tii baa taalla imikana koonfur waxaan odhan lahaa koonfuri jajabkan iyo burburkan faraha badan leh ee dowladaha ka dhex samaysmay waxay ku dhisayeen ubaamaya hunguri madaxnimo oo sii hakinaya cududeeda iyo codkooda isu tagga inay taa horta ka waantoobaan waxay waxtaran laga soo qaato ta kale inkasta oo ay hadda u eg tahay sida ay aamin tahay koonfuri inaan ciidan shisheeye mooyaane ciidanka kale waxuu soo dhicinayn in ciidanka shisheeyana waqtiga ugu dhow go-aan laga gaadho in laga saaro waddanka taas baan anigu kula talin lahaa dadkaynu walaalaan nahay ee reer koonfureed dowladdeenna Somaliland taageeraday bilowday iyo dadnimada ay u hayso koonfurna waa inay sii wadaa waa inay heshiisaynteeda iyo wax noqodkeeda iyo jiritaankeeda way ka geysataa caawimo iyo kaalin wax ku ooda iyaga iyo innagaba haddii la eegana waxay dowladdeennii hore ku burburtay cid isxigsiisa oo tuuga oo iska dhigta dowladda inuu waxu tarayo in la iska ilaaliyo qof kacaan iska dhigaya waqooyigan imika aad bay ugu badan tahay dhawaaqa hadda ka soo yeedha oo xisbigan kulmiye markaan eego hadda waxaad moodaa inay kacaan iska yeelayeelku aad ugu badan tahay ma diidani in la ammaano qofkii wax qabtay heesihii siyaad barre aynuu diidnay oo kalea la qaadaya madax loo qaadaya meeshii la istaagaba waxaad maqlaysaa in laga badbadinayo dowladda kulmiye waxay qabatay anigu runtii waan kasoo horjeedaa in saa wax loo ammaano inay dowlad yihiin ay ku guulaysteen waa taageeray anigu halka jooga waan taageeray iskuulaan ka shaqayn jiray bay ku shireen qoladiina soo gaadhay hoolkii aanu ku qaadan jiray briefinga maan tegin anigu hoolka laakiinse waxaa in siilaanyo in la doorto siilaanyo dad badan baa igu yidhi siilaanyo dadku ma jecla yaa la dooro waxaan ku yidhi in la doorto weeyaan madax meel ka sarrayso la salaaxaana ma jirto runtii wakti fiican iyo fursad fiican oo Somaliland ay aad hayragooda taagan tahay ayuu helay waxaa laga ilaaliyo afarta lagu fiiqo oo la yidhahdo dowladda xigsiinaya aniga taasi wax soo baxay halgankii aan soo galay nin yiri marxaan baan ahay oo yiri nin isbitaal ku qabsaday darajo oo telefoon xamar soo dirtay ninkiina ka qaaday xamar markaan nimana 2 sano gudahood gaarigu watay iyo jabhadii dagaalku ugu sareeyay iyo darajo sitay nina ma lahayn full control baa 2 sano laga soo gaaray Cabdiwaab baa la oranay nina disxigsiinaysa kuula soo galay dumitaankaaga siyaad barada wuxuu la galay xaaskiisa wala lahaay wuxuu la galay dumitaan buu la galay marka taas oo kale inaan ka dhicin in dadka aan iska dhigaya oo isxigsiiya maamulka ilaanu silaayana aqbalin madaxweynaha Axmed Maxamed silaayo inaan ixtiraamo weeyay madaxweynimadiisa iyo magaciisa ugu yeero madaxweyne ku-xigeenka injineer Cabdiqaadir isagana waan ixtiraamaya golayaashan ixtiraamaya inkastoo ku raadeen labada gole oo kelmadan ka oranay halka tahay inay baneeyaan meesha u diyaar garoobaan si oo baneyn lahaayeen labada gole way ku raageen meesha dad kale oo cusub inay yimaadaan inkastoo ay go'aano wax ku oola iyo talooyin badan iyo wax badan wax ku oola ay ka qaateen wadanka oo aan u qirayo laakiin haddana waqti badan bay joogeen muhiimadda waxaan leeyahay Somaliland wax kasta ka dhinaadeen harada wada saysato
waxaan ku celinaya aan kaga baxayaa hadalkayga waa in la helo maamuus sarkaal iyo siyaasiba dadkii ka qayb galay halgankii s n m in maamuuskooda la diyaariyo mid dhintay iyo mid agoomabay iyo mid nool iyo mid sarkaalah beelaha kalena dad hormooda bay leeyihin iyago fasax bay tahay inay soo kiciyaan dadkooda aad iyo aad baad mahadsan tahay duuliye maxamuud maxamed xayd baad mahadsan tahay maxamuud aad baad mahadsan tahay inagoo muddo dheer kala maqnayn iskuna kala sahay ilaa iyo foorkeeni sanadkeeni afraad aad iyo aad baan ugu farxay